بسم الله الرحمن الرحيم. وعبد الرشاد الشعاع كلنتي wanaagsan waa barnaamijkan caaw balansanayn raalla hada wax yar oo soo daahay hawlo ma iskaga jir insha Allah taala haddaan bilaabi doonaa أما قبر وداد دالي وعاني يا رستان نفتا ويشا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما قبر وداد دالي وعاني يا رستان نفتا ويشا وهبك وهبك يسارني وانا جاي الراحة وحكوت جاية معاه بلا شوق ما يسيبون يلقوني وريبون وانا غايب التريان بلا شوق ما يسيبون يلقوني وريبون وانا غايب التريان بسم الله الرحمن الرحيم. واسكب بالله دونا برنامجكي أنا وترجلي إن أنا كجا هذلو وده هذا الكنيروبي وأنا نوبحيي رواية النيروبي لفتجا صوت أنا نوبحيي رواية النيروبي وشيء دونا هدير بيدمو وأنا شرح دونا هذا أنت أنا جودك جلين برنامج كرواية النيروبي وأجا هنا حسين إنسان waxaan jeclaa marka ugu horeysa inaan halkan ka dhaleeceeyo waliba si aad u xoog badan aan tuso inaan ka xumahay at the same time aan codsanayo in shuruud la'aan lagu sii daayo hantidoodina loo celiyo dadkan oo la xirxiray maalmihii ugu dambeysay uu Cabdi Maxamuud Cumar Cabdiilay uu magaalada Jigjiga iyo Qabri Bayax uu ku xiray kaliya in eheladoodu ay ka qayb galeen shirkii dulmadiid ee magaalada wadanka Mareykanka iyo inay ka tirsan yihiin dulmadiid dadkan waxa kamid ah Generaal Maxamed Cali Xasan oo booliska ka tirsanaa jiray Jigjiga lagu xiray Dr. Xasan Cabdullaahi Bade oo Sultan Cabdiraxmaan Bade adeer u yahay iyo Sultan Maxamed Bade oo kamid ah guurtida ama golaha maartay dulmadiida wadanka Mareykanka دكتوركو وأمريكان citizen سان حكتو كوهايو مريكو كتغي وانا كحوما هاي إن لو حلو أديركا أيان نغسور جيدا سيدو كلا عبد متان سعيد وجيجيغا لغا قبطي فاطمة عبد الوهاب شيخ محمد وقبر بيح لغا حري محمد الموغي وقبر بيح لغا حري موسى الموغي وقبر بيح لغا حري قوري عبد الله كارية وقبر بيح لغا حري حليمة حاجي وأيضا قبر بيح لغا حري عبد العزيز محمد دردة وقبر بيح لغا حري إيه الشيخ محمد فارح عثمان وقبر بيح لغا حري عبد الفتاح محمد داهر وأصيغنا قبر بيح لغا حري لما دادكا وحا لو حري إن إهلدودو أي كقيب قاتين كعضون كدولمديد أما قيب كيهين سيان مرر بدن هرو الشاقي لا تزير وزيرة وزر أخرى نفنا نفك للدنبي هذا ما قادو لمن ويدين كرو وحوي حتى هدي أي دنبي جلان ضدك إهلودو دا أيكو دنبي ما يسجلين حير كإثيوبيا كأدونكا إيو أرتكلادي هيومن رايتس كأدونك وذجاري منكم ما قرأين قف كرا لو قبته سيدا وكلا هوتيلada iyo hantida la wareegay bada hotel Jigjiga bada gas station oo Jigjiga ku yaala bada gas station 2 oo asaguna Jigjiga ku yaala khadar pharmacy oo khadar Jigjiga walaalkii uu leeyahay laba guri uu leeyahay Maxamed Mataan Saciid oo walaalkiina uu xiran yahay oo walaalkii
oo muddo u xiran cabdiiley xaaji mataan siciid baa ku magac dheeraa guryahoodiina waa la wareegay kulmiya hotel oo uu iska leeyahay badri xaaji cabdi oo qabri bayax ku yaala guriga geela sheekh axmed oo qabri bayax ku yaala guriga khadar budul hiirey oo asaguna qabri bayax ku yaala iyo guriga maxamed axmed dhurde oo qabri bayax ku yaala dhammaan guryaha iyo hantida la wareegay hanti badan baa la wareegay dad badan baa loo xidhay eheladooda laakiin waa kuwii ugu dambeeyey oo si fiican weliba loo record gareeyey oo loo qoray waxaan jeclaan lahaa dadka kale hantidooda la wareegay ama eheladooda la xiray dartood loo xiray inay soo gudbiyaan hay-adaha xuquuqul insaanka loo gudbinayaa sanadka maraykanka oo aada hadda culays u saaraya dowladda etoobiya iyo xaaladda xuquuqul insaanka etoobiya ka taagan baa loo gudbinayaa waxaa loo sheegayaa sababta loo xiray marka haddaad record garaysid walaalka ama ehelka haddii la xiray dartaa loo xiray ama hanti laydinkala wareegay fadlan noo soo gudbiya waxaad u gudbin kartaan bashiir garaadulmadiid facebook kusoo gala aniga mustafa cumar qofkii aad jeceshihiin oo ama foosiye cabdiqaadir maxamed ciise dhammaan qof allaala qofkaa taqaan u gudbi magacyada insha allahu tacala waan soo qori doonaa listiga dadka aad ku hagaajin kartid report baa laga diyaarinayaa waxaana loo gudbinayaa dhammaan hay-adaha xuquuqul insaanka oo ay kamid tahay ethiopian human rightska oo ethiopia ka howlgasha intaas waa intii ku saabsanayd dadka la qaqabtay waxaa kale oon jeclaan lahaa inaan idiin sheego maanta mudaharaadyo waaweyn baa ka dhacay waddanka ethiopia shalayna shaqo joojin gebi ahaan magaalada addis ababa iyo dirdhaba video baan soo geliyay haddaay videogaas waa exclusive anaa la iisoo diray insha allahu tacaala kacdoonka dadkeennu ay wadaan wuu ka bilaabmi doonaa dirdhaba iyo jigjigaba dad shucuubta oromada kama liidano waynu bilaabi doonaa way is abaabulayaan dhalinyaradii iyo dadkii videoyada ayaka iisoo dirahaya oo ila soo socodsiinahaya keliya sida maxaabiistiina laydinku soo dayn karo ama sida etoobiya maanta laysu dhegeysto waxaa weye dadka qayliya ee kacdoon sameeya ayaa maxaabiistooda loo soo daayaa xuquuqdoodana wax looga ogolaadaa looma wada ogolaado laakiin waxbaa looga ogolaadaa marka haddii ninkaan hadlin habartii baa qadisa haddii aynaan hadlin oo aynaan kacdoon dal iyo dibada samayn oo aynaan qaylinin rajo badan ma qabno in mataqaanaa dadkeena la sii deynayo ama xuquuqdeena aan helayno marka systemkaasa hadda etoobiya ka jira shaqo joojin in la sameeyo maalin horena waan ku baaqay waan ogahay internetkii wuu ka xiran yahay jigjiga iyo deegaankii laakiin brocesskii tvgii baa nagu yaraha adkaaday oonu ku hawl jirnaa si toos in loogu gudbiyo maalin walba dhacdooyinka oo dadkii waddankii joogay ay u daawadaan ama ay u arkaan waa muhiim intaa markaan ka gudbo oo maaragtay oo bilowga ahayd waxaan hadda gelayaa riwaayaddii nairobi oo aada u xiiseynaysaan riwaayadda marka hore saan usoo qoray xaqiiqatan aan iri aan mualifka iyo iskudubaridka iyo saan u qoray inta badan waa run bay ku salaysan tahay iyo xogaal maxaan ugu bixiyey riwaayad waxaan riwaayadda ugu bixiyey waxa meesha ka dhacaya iyo sida ay ku timid iyo xaqiiqadii lagama sheegin ee wax kale iyo sawir kale ayaa laga bixiyey taas ayaa sababtay inaan idhaaho waxa meesha yaalla ama laga wada hadlaya ama dadka isu yimid sida ay isugu yimaadeen hawsha ayada ah iyo cidda ka dambeysay lagama run sheegin marka saasaan riwaayad u iri iyo jiritaan waxaa kaloon ogaa cabdi ilay inuusan daacad ka ahayn nabad meesha ka dhacda keliya dana yar oo daciifnimoa inuu ka lahaa inuu nin balaayo ah isu tuso halyey ah jabhaddii 30 sano soo halgamaysay inuu isku sawiri karo oo maaragtay uu soo ag istaagi karo calashaan jima tuurasho dadka kale aniga hadda inacaba ama igu kacsan waxba igama qaadi kartaan kuwii halgamayay baa maanta hor fadhiya oo ila hadlaya daad sidaasaan ugu bixiyey oo keliya uguma bixinin wax kale waxa waajib haddii hadda la fiiriyo ama wada hadalka ha lagu heshiiyo ama aan lagu heshiinin dantii uu ka lahaa cabdiiley wuu ka gaaray shalay baan soo qoray cabdiiley sawirro qurux badan baa meesha ku jiray sawirro qurux badan ayaa meesha ku jira uu dadka ku walaacsado sawirradii wuu helay hadda kadib xataa hadduu rabo soo fiirsadana way dhici doontaa dad kirishbooyaal ama dad dibadaha jooga intuu kaxaystu dhihi oo naftu waa tii ila heshiisay nairobi sawirradaana uu dadka hor wadwadi doonaa
waanu wada hadalay way ila heshiisay propaganda badan baa ugu jirta uu samayn doono maalmaha soo socda ama bilaha soo socda marba sida uu u arko munaasib ay ugu tahay that's why aanu lahaa daacad kama aha ninkanu waana propaganda iyo inuu isticmaalo ayuu rabaa laakiin dan shacab cabdi dan kama laha horena waa idinku sheegay waxaana fiican qofka dadka yaqaana ama bartay in laga waraysto ama darsay dabeecadiisa iyo siduu u dhaqmo waa taas marka bal wax yar aan dib ugu noqdo hadda heerkay marayaan waan sheegi doonaa waxaa hore u jiray wada hadal oo NLF Ethiopia ay gashay 2012 iyo 2014 maxaa lagu kala tagay oo la isku khilaafay waqtiga ayada waad baari kartaan go'aamadii ay jabhadu ka soo saartay ama qoraaladii laba qodob baa loo isku khilaafay dastuurka Ethiopia wada hadalku ha ku saleysnaadaan علشان دستورك إثيوبيا جبهته ها بشو عبد الحديد جلسيد كنيني هقول لقضا أريد يسبق كميدا وأنا يسيد كنيني أقول لك عن دستورك إثيوبيا ديجري قضبوها قضب كلا وضعوها قف صوماليا إنه متلك إثيوبيا وهذا هذا الكسوفر يسنكره وحول بوحافي عن نور أنت لقى الشيء لبدي قضماتي يا كتنازلي إذن كان يدين ويدي يا كتنازلي أما تنازل كبحية سيادة أنتم بعديه كرتان لكن هو يسكع عداه جبهة كتنازل شيء أو الدستور كإثيوبيا وهذا هذا الكل وصل لنا ويا وقلاتي قف صوماليا إنه متلو وفتي إثيوبيا ويا وقلاتي قف كصوماليا عبدي محمد عمر بوها عبدي لي وحقوق قراتي تلك قدوميها قديجا وهذا هذا الك لك إثيوبيا قدوميها قديجا وهذا هذا الك لك إثيوبيا وحوها عبدي محمد عمر إن ذوقتي واني صوماليا وديان كترسن waxba macna male xifaaltanka dhaxdeena ama maartay markii dacaayada la iska sameeyo waxaana muhiim ah qofku inuu isweydiiyo ama aniga igu mashquulsan ama qof kale dacaayada ma urur baan ahay ma cabdiilay baan la socdaa ma Ethiopia ahay ma dadkii baan xirxiray danta igu jirtay inaan orf dacaayad ka faafiyo ama dacaayaday maxay tahay wada hadalka meesha ka dhacay laba qol u dhaxeeyay Ethiopia cabdiilay iyo jabhada دعايات بدن يقيل بدن قلنا إثيوبيا عبديلي كمسو يرين أما تاجرياشيسا لكن قلنا أو نرفت دعايات يتقال يوير أيكو يجدي هنا أيك كهالليو حقيقة أنا وهذا هذا الكيسي وحد عيان بنسو جد بني كلية موحد وهاي ستان إنا ورك صح ذا يدين سو جد بيو ولي بس متطوع نماء أو فريئة أو تي في على العكس سان أما وخرسة أما حلقة أو نديك بهنا مجرتو marka ma waxaad igu haysataan wararka xaqiiqada ah noo soo gudbin ma fahmi karo hadduu qofku wiira war Cabdirashiid Maag ama Cay ama weerar ma garan karo macnaha adu inaad isweydiiso waxaad igu maagaysa aniga ma urur baan ahay tartan kugu la jira ma waxaan ahay dawladda Ethiopia ma guumeysiga la dagaalamayay baan ahay ma waxaan ahay Cabdi Ilay maya xaqiiqada inaan ku soo tabiyo ayaa la diidan yahay adu laftigaaga waa inaad isweydiisaa wixii kaftana waa dhinaciisa marmar way dhacdaa inaan kaftamo ama kaftanka si kala aad u qaadid ama fikirkayga aan cabiro shakhsiga aan xorka u ahay laakiin wixii war iyo akhbaara marraba inaan been kaga sheego anoo og ha ka yaabin waxaan go'aan ka gaaray inaan war aan ogahay inuu been yahay aan ku soo qoro ama qolada ku xumay ama qolada ma jirto haddii hadda loo fiiriyo Cabdiilay iyo Onelaf Cabdiilay baan ku jeer nacabahay Onelaf wax nacayba oo u qabo shakhsiyan ma jirto waxaan jeclaan lahaa inaad ogaataan wax oo nerf nacayba aan u qabo ma jirto shakhsiyan madaxdooda iyo dadka hogaamiye waxaan u qabo oo nacayba ama colaad ma jirto waqtigan xaadirka ama aan kala soo horjeedo kaliya siyaasadaha ama policy-ga khaldan sometimes inaan dhaliilo asa qof xor ah oo deegaankiisa saameyn ay ku yeelan doonto waxaan u arkaa xaq inaan u leeyahay taa marka aan ka hadlo macnaheedu ma aha inaan oonaf nacabahay ama inaan madaxdeeda nacabahay ama adiga ka shakhsi ahaan inaan ku nacabahay waxa fiican inaad intaa ila fahantid oo isku daydid waxna caybsha oo dhaxdeena yaala adiga taageeraha oo jabhada ama taageersan ma ay jirto waxa soo nimaadana ma jirto bal xuquuqdaada iyo xuquuqda muwaadiniinta oo dhan inay helaan ayaan jecelahay oo ku tala jira waqti badan aan u horay marka in la yiraaho war Cabdirashiid wuu inaga soo horjeedaa waxa fiican marka inaad isweydiiso muxuu inaga soo horjeedaa muxuu wataa muxuu yahay inta waxaan jeclaan lahaa taageerayaasha labadii maalmood oo ugu dambeysay aad ii dhaleecaynayay wax qabadkayga iyo aad ii weydiiyaan iyo waxaan hore u soo qabtay insha Allah ta'ala markii aan xil isu soo sharaxo ayaan biography-gayga sheegi doonaa
biographiga oo dhammaystiran marka ayada ayaan sheegi doonaa oo dadka usoo bandhigi doonaa. laakiin maadaama hadda aan xil u sharaxnayn macluumaad kaliya aan soo gudbiyo si waliba aan anugu doortay oo mutadawacnimo ah dhib badanna iga soo gaaray oo aad ogtihiin cabdiiley ehelkayga iyo sidoo dhibka ugu geystay iyo ayeeday inuu dilay allah u naxariisto. waa nasiib darro haddana inaad igu maagtaan shaqada aad isu xil saartay dhibka kaa soo gaaray maxaad u haysaa mana garan karo haddaan berri aamuso waxa kuu soo kordhayay. ma xornimadii baad helaysaa ma guul kalaad gaaraysaa ma dadkaas sidan laga daynayaa. haddii aad ii sheegtid guul aad helaysa haddaan berri aamuso maanta ayaan aamusayaa. bal ii sheeg guushaa keliya ayaan gaaraya cabdirashiid oo aamus waan aamusayaa beritolna ma soo geli doono. taas waa intaa. waxaan jeclaan lahaa in qoraal weliba igu soo gudbiyaan dadka aaminsan inaan aamuso oo guushi anu aan hortaaganahay. intaa markaan ka gudbo see maanta wax u dhaceen. dhinacyo badan baan waraystay dadkii goobjooga ahaa oo weliba dhinacyo kala duwana. maanta waxay wax u dhaceen marka hore heshiiska la iskuma diidin iyo qodobadiisii. ma jeceli inaan hadda dib u galo. horey ayaan u faalleeyey ama faalla aan uga bixiyey qodobada awood qaybsiga maxaabiista in la sii daayo xisbi siyaasadeed in loo aqoonsado jabhadda. maxaa dhacay marka intana hadda sheegay waa warkii wixii maanta dhacay. jabhadda ONLF waxay jeclayd wadahadalkaas marka uu dhaco asagoo qayb labaad yeelan lahaa oo ay dad kula noqon lahaayeen wadatashi madaxdooda iyo shirweynena ay qabsan lahaayeen sidii shalay aan soo qoray oo bisha July shirweynahaas bisha July dhici lahaa kadib in la isu soo noqdo haddana ay Ethiopia iyagu wax kala saxeexdaan kadibna shirweynaha intii lagu soo ansixiyo qodobada saxeex kale la isugu yimaado. cabdi iyo nimankii la socday waxay yiraahdeen heshiiska cabdi baa saxeexaya dhanka Ethiopia oo nalaf waftigii ka socday wada hadalka way diideen arrinta ayada. waxay yiraahdeen maxaa damaanad qaad noo ah yaa noo damaanad qaadaya awood qaybsiga federaalka iyo maxaabiista federaalka in la soo daayo iyo arrimaha yaa damaanad qaadi kara maadaama cabdi uusan dowladda federaalka Ethiopia uusan xil ka haynin. waxaan rabnaa inuu noo saxeexo Gabradille. macal asaf Gabradille laftigiisu ma saxeexi karin waana wixii aan habeen hore sheegay. Gabradille dowladda Ethiopia si toos ah ugu shaqeeya hadda asaga iyo gabraha kalaba. Gabradille wuxuu u shaqeeyaa United Nationska wuxuuna haystaa ciidanka nabad ilaalinta ee South Sudan. gabraha kale wuxuu u shaqeeyaa IGAD. General Damesa oo la socday waa sargaal hoose oo herar ka yimid. waan gari doonaa way ka cudur daarteen inay saxeexaan wayna diideen. jabhadda waftigii ka socday ayaguna way diideen maadaama aysan federaalku saxeexaynin cabdina ayna damaanad uu samaartay ayna ka heli karin una damaanad qaadi karin heshiiska inay saxeexaan. sidaas ayuu ku kala istaagay. waxaa socota waan uu wado Sheekh Axmed Madoobe oo ah in lagu qanciyo jabhadda inay ogolaadaan cabdi in loo saxeexo. waxaan idinka iloobay cabdi markii hore wuu ogolaa ama Gabradille saxeex buu ku yar lahaa inkastuuna awood u lahayn uu shaqada ku waayi lahaa maadaama uusan dowladda Ethiopia federaalka hadda uusan u shaqeynin. laakiin Gabradille iyo qoladii Tigreega cabdi dhegtay waxa ugu sheegeen waxay ku yiraahdeen waa lagu yasayaa niyo adaaba waftiga Ethiopia hogaaminaysay waaba lagu yasayaa maxaa saxeexaaga loo diidan yahay. cabdi dad badan kama uu lahaa wada hadalkii heshiiska cirku isku tuuray wuxuu yiri qofaan aniga ahayn heshiiskan ma saxeexayo maxaa la ii yasayaa waftiga Ethiopia anaaba hogaaminayay maxaa loo diidan yahay saxeexayga. halkaas xaaladdu maraysa hadda Sheekh Axmed Madoobe ku dhex jira oo waan wada ma ku guuleysan doonaa mise uu ku khasaari doonaa ma ogi. Sheekh Axmed Madoobe wuxuu isku dayayaa inuu ku qanciyo waftiga jabhadda inay saxeexaan heshiiska oo cabdi ogolaadaan inuu saxeexo dhanka kale iyo isku dayayaa. taa ma ku guuleysan doonaa ma ogi waanu sugeynaa ilaa Britoliyo. laakiin Britole cabdi maxamed cumar cabdiiley wuxuu shir jaaliyadeed ku qabsan doonaa safaaradda Ethiopia magaalada Nairobi. arrimo kale oo ganacsi iyo barnaamijyo kale iska galay lacagaa Dubai loogu soo diray waxbuu kala furfur isleeyahay Nairobi iyo jaaliyadihii joogay iyo dadkii siyaasiyiintii reer Kenya isbarteen marka waxbuu isleeyahay kala furfur shir buuna Britol ku qabsan doonaa safaaradda uu ugu magac daray shirka jaaliyadda. intaas waxaa muhiima shalay saan sheegay xalay aan soo qoray
riwaayad waxay ku tahay cabdi nimankan asagaa soo kaxaystay gabradhile iyo gabrahan kale iyo generaalka yare hoose midna Ethiopia ma matalaan waxaan oo dhan waa riwaayad uu asagu mu'allif ka yahay waxaa isku dubiriday Sheekh Ibrahim kaliya danta laga lahaa waxa weeye sawiro ama in jabhadda siyaro luuqluuqa iyo dhaanto iyo hobaba iyo reerihiiba midoobay iyo way israacday in lagu geliyo haddii kalena khasaaro marwalba ma joogo oo sawiro fiican buu ka helayaa iyo propaganda iyo dacaayad dadkii ka soo horjeeday buu ugu jima tuuranaya intaa kaliya ahayd waxaana caddayn kugu filan isla caawa way baxeen labadii gabre iyo ninkii damesa diyaarad bay raaceen in lagu arka xataa way ka cabsadeen waxaa kaloo caddayn kugu filan ninka la yiraahdo Birhano ee afayeenka u TPLF ama active-ka u wax soo qoray wuxuu yiri maanta qoraal uu soo qoray af xabashiya wuxuu yiri wada hadalka Nairobi wuxuu u dhaxeeyaa xisbiga dilmuraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia iyo ONLF ayaa ku wada hadlaya wax dawlad federaal oo shaqo ay ku leedahay ma ay jirto waxaa kaloo caddayn kugu filan dawladda federaalka Ethiopia iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha midna war muuna ka soo saarin ama caddayn warqad uu leeyahay wada hadal ayaa noo socday jabhadda sidii 2012 iyo 2014 sidaa darteed wada hadalkan oo dhan waxay ahayd riwaayad uu cabdi soo jiray riwaayadaas oo kor iyo hoos isaga faa'iido u ahayd waxa faa'iido u ahayd inuu sawir la galo madaxda oo nalaf inuu la kulmo siyaasiyiinta ogaadeenka Kenya uu isu tusanin haliyay inuu maaragtay nin balaaye ka dhacday loo arko oo dadkii kale uu niyad jabiyo ama isku dayo inuu niyad jabiyo lana yiraaho ninkii uu guuleysto maanta maaragtay reerkiisii buu wataa ama jabhadii baa soo horfariisatay intaas waa inta waxaana fiican wax walba runtii in laga sheego ma jeceli ama igama aha qolo ku xume qolada ku xume iyo qolada ku xume in guul la gaaro oo dadku ay horumar gaaraan waa arrin fiican cidii keentaba waan ku bogaadinaya xaqiiqatan aniguna meehi dadka kala jecel cali baa keenay iyo xuseen baa keenay iyo reehebel baa keenay iyo hebelkaas keenay waxaan jecelahay qof walba inuu isxilqaamo uu awoodiisa iyo inta ma aragtay tabartiya uu dadaalo wuxuu keenana loogu mahadiyo okay mid baan jecelahay inaan ma taqaan ayadana ka hadlo inkastoo dib u dhiganayo ona arinta kale aan rabay inaan ka hadlo waxay waqtiga kala guurka maanta Ethiopia ay marayso si aad u ogtihiin mudaharaadyo badan baa Ethiopia ka socda maxaabiis badan oo Oromo la sii daayay wadanka isbedel baa inuu ka dhacay u badan tahay ama muuqata marka waxaan la hadlayaa ama message-kan uu ku socdaa dadka aniga aan isku beeshanahay ee deegaankaana u badan iyo dhulka u badan deegaanka Soomaalida isweydiinta aan xalayna soo galiyay waxay tahay ma Soomaalinimo inagoo ayeen wax ku raadinaa oo Soomaalida deegaanka inala degan baynu garbaha isqabsanaa mise ogaadanism iyo dadka extreme qabiilka aaminsan baa inuu hogaaminayo oo inuu raacnaa oo inuu durbaanka inoo tuma waxaan jecelahay su'aasha ayada inaan weydiiyo dadka wax garadka dadka indheer garadka waxa muddo badan 1991 isbedel baa Ethiopia ka dhacay dadkii oo soo qaxay sida loogama faa'iideysan waad ila qiraysaan aniga iyo dad kale oo badan dad yar baan ahayn inkastoona ba Ethiopia u qixin laakiin dadka da'deyda waqtiga ay ka way yaraayeen talana ma aysan ku lahayn masiirka ummadda iyo wixii la yeelaa kuwii waqtiga talada ku lahaa ama ka qayb qaatay ma qaba inay maanta guulo keeneen cidii dooniba ha ahaadaan reerkii dooniba ha ahaadaan waxa weeye guulo ma aysan keenin ummaddu 91kii heerka ay joogto waxaan qabaa inay maanta ka hooseyso xaq dhaqan dhaqaale tabar iyo dadnimaba waa la dhaqan rogay oo baaba'een marka maanta waqtigan aan joogno miyaysan mudnayn inteena waqtiga ayada aan awood iyo tabarta u lahayn inay wax hogaamiso ama ay dadka wacyi geliso inaan maanta dadka ku wacyi gelino Soomaalinimo isu soo dhawaasho dadka dhulka wada degan ee Soomaalida inay ayagoo isku duuban ay wax raadsadaan ani taas ay la quman reerkaygu guushiisu waxay ku xiran tahay guusha dadka deegaanka la degan wixii dib iyo dheefana inay qaybsadaan baa ila quman haddii dagaal la gelayo haddii nabad la qaadanayo ayadoo Soomaali la wada yahay maslaxada guud ee Soomaalida deegaanka la eegayo in la wada galo laakiin haddii aanu reero noqono iyo qabaa'il waxa weeye waynu ku khasaareynaa reerba maalin baa la xunayaa sidii saddex dibi baa noqonaynaa
waan kusoo celceliyaa waxa weeye dad baa jira mar walbaba extreme right iyo extreme left dhinaca bidix iyo dhinaca midig wax u dhaxeeya in u baahannahay labada dhinac wax u dhaxeeya oo dadka isku soo dhaweeyeen u baahannahay ma aha inaynu qiiro jabaanta iyo tolla ayayda aynu ku kacno aynu dhageysano waxa reerkiina dan u ah ayaa reeraha dhulka degan oo dhan dan u ah isku day inaad dadka isu soo dhaweyso mid aytamay haddaad aragta ha sii buunbuuninin dadka maaragtay ha sii kala geynin wax khilaaf keenaya qabyaalada ha ku dhaqmin qabiilada ha sii kala qaadqaadin waan ogahay aniga hadda shakhsiyan maalinba reerka aan ka hadlo dhibkiisa ayaa laygu tiriyaa waxaa maalmihii oromada waxaa la dhihi jiray waa oromo waa jaarsa baa laygu cayn jiray jaarsa maxaa kuu gala jaarsaa dhashay hadda waxaa ugu dambeeya waa jidwaaq rag dadka qaarkoodna waaba reer jarareed bay yidhaahaan ayagoo dhagax buri u riixaya waxa weeye meel kasta iyo deegaan kasta iyo dad kastaan ahay dadku waa isku mid dhibka kaa loo geysto waa inaad aduu ka naxdid oo ka damqatid haddii aadan kaa ka qaylin oodan ka damqanin berri aduu kuu imaanayaa billah calaykum ha ku fiirine dhibaato dad meeshaa ku dhacay oo kiyaalo qabiil reerku dooni ha noqdo cidduu dooni ha noqdo dhaleecee qof bini aadana gardarre in lagu sameeyo waa khalad in adeerkaa cabdiiley gardarre inaad ku taageertid waa khalad wuxuu gar ku leeyahay ku taageer wixii gardarre iyo dulmiga ka qabo ase shaksi ahaan qof walba ase urur ahaan waajib baa ka saaran waxaan jeclaan lahaa jabhaddu inay dhaleecayso beegsiga beesha jidwaaq lagu hayo ee cabdi uu wado xadhigga cusub inay war-saxaafadeed ka soo saarto maadaama ay tiri soomaalida deegaanka oo dhan baan matalaa waa inay tusaan waxay yidhaaheen waa inay baaq ka soo saaraan sidii dadkii belbeleyti loogu xasuuqay ama lagu dhibaateeyey ay baaqa oga soo saareen waa inay tusaan tacaatuf iyo dadkao dhan inay matalaan ayna ka xun yihiin waa taladeeda waa fikirkayga ayakaa u madax bannaan ka urur ahaan midda soo hadhay oon raba inaa hadlo waxa weeye warbaahin madax bannaan ma aynu lihin dhibaatooyinka hadda wadahadalkii nairobi ka socday idinka haystay ama dadkao dhan ka haystay war dhexdhexaada ama media dhexdhexaada oo soo tabisa ma aysan jirin wuu yiri way tiri waa lagu kala tegay waa la heshiiyey lama heshiin ayaa maantao dhan lagu murmayey waa tusaale yar wax idinkala saaraya ma jirin waxa meesha ka dhacay cid idiin soo gudbinaysa ma jirin sababtaas waa media madax bannaan baan jirin sababta dad badan ay u diidan yihiin ama siyaasiyiin waan garan karaa dad meel ugu xaraysnaa cabdiiley ma uu rabo media xor ah bal iska daa kuwa xorta ah sida VOA iyo BBC iyo Universal ayuu lacag ku bixiyaa inaysan ka hadlin deegaankii wixii ka dhacaya deegaanka iyo wixii ka dhacaya inaan la soo hadal qaadin iyo arrimaha malaayiin dollar buu ku bixiyaa cabdiiley media aad idinku leedihiin ma ay jirto sidoo kale waxaa jira waana dhaliishiisa qofku inuu qaataa jabhaddu ma ay ogolo cod aan keeda ahayn shacabkeedu inuu dhagaysto ama dadku ay dhageystaan qofkii kale waa la propagandeynayaa asagaa shakhsi ahaan loo weerarayaa miidiyihii kale soo baxda way nagu kacsan tahay been baa la sheegayaa shacabka aan la jahawareerinin adiga oo taageero jabhadeeda maxaan kaaga helayaa inaan jabhadaada dhaleeceeyo ama aan dacaayadeeyo ama miidiya xora ina dhaleecayso miyaysan adiga kuu fiicnayn su-aalo adag in la weydiiyo hogaamiyayaashaada waxaa fiican inaad kala garatid dhaleecaynta mabda'a ay jabhaddu ku taagan tahay ee xornimo dadkaas inay helaan waa mabda qaali ah waa mabda in loo dhinto ay mataqaanaa ay tahay arrin geesinimo leh laakiin waddada loo marayo waan isku khilaafsannahay waan rabaa dadkaas inay xor u noqdaan arrimahooda siyaasadda dhaqaalaha dhinac walba mabda'a asaga ah eed u dagaalamaysaan weligii ma dhaliilin waxba kama sheegin laakiin wadiiqada aad u marteen waan dhaliilay iyo madaxda idinku hogaaminaysa waxaana qabaa inay idinka idiin fiican tahay in la dhaliilo su-aalo adag la weydiiyo xaggeed wax u wadaan faa'iide in idinku jirto ma aha in hanuuninta iyo idaacad uun idiin sacabtunta aad dhagaysataan waa la duulay waa la dhaqaaqay waa in hard question la weydiiyaa mas-uuliyiinta aad xilka u dhiibatay waa in la helaa wax independent ama ka madax bannaan kuwa ay ayaku maamulaan oo su-aalaha adag weydiiyo wadahadalka maanta wuxuu u hirgeli waayey garan maayo hadalkii faarax macalin uu shalay jeediyey inuu ahaa iyo ama warbixintii kale soo gudbinayna inay riwaayad ahayd
ma garan karo laakiin waxaad ogaanaysaa saameyn inay ku leedahay madaxda markii media madax bannaan oo sida ay jecel yihiin ma ahana si kale sida dhabta ah ee xaqiiqada jirto warka usoo tabinayso ayaka xataa saameyn bay ku tahay khatara ay qaadan lahayn bay dib uga istaagayaan pressure baa fuulaya waxaa taageerayaashoodii ayaa weydiinaya su'aalo adag war saasaa la leeyahay ee maxaa ka jira keliya ayaa ayaka ugu filan caqabad marka waxaan jeclaan lahaa inaydan cadow u arag ee aad u aragtaan qofkii cod dhadhaxaada ee mataqaanaa ama dhaliilaya siyaasiyiin ama dhaliilaya siyaasad la qaatay inaad u aragtaan qof faa'iido u ah dadka iyo waddanka ayadaan u qaadanin qof cadow ku ah idinka iyo qadiyadiina waa haddii waxa ka muuqda mar walba aad eegtaan aad hadalkiisa qiimaysaan cay iyo caraatin guul laguma gaarayo waa israacda iyo been inaan isu sheegno guul laguma gaarayo waxaa fiican runta in mar walba lagu wada noolaado intii tabartaa aad tallaabsatid aad ogtahay xaqiiqada ma aha in lagu sheego waxaan jirin wararka iga yaabiyey oo ilaa daraad iga yaabanaa waxay ahayd dad badan baa waxay soo qorayeen ama iguba qabsadeenba weliba qolyaha miidiyaha jabhadda u qaabilsan waadna ogtihiin waa soo qoray cabdiile ma imaanayo shirka maalinkii markaan soo qoray ajisabuu ka soo baxayaa ma imaanayo bay yidhaaheen beenaalaa tahay way caayeen wuu yimid markuu yimid aan raaligelin ka bixiyo waxay yidhaaheen miiska wada hadalka ma soo faraysanayo anuguna sidaa nafteyda u huba ayaan u hubay inuu soo faraysanayo way ugu caayeen ayadana waxay soo qoreen Switzerland iyo United Nations iyo qaramada midoobay baa imaanaya wada hadalka waxba kama jirin way beenooday waxa way mar walba wixii la rabo in lagu sheego oo iska aamintid waxa la yiri nin Umar Kadaab la dhihi jiray baa jira shalay markuu been ku sheegay maanta uu ku sheego waxaan qabaa maalinka saddexaad inaad calaamad su'aal aad saartid qofka warkiisa aanu kulay saasan sameeyaa qofka war ma ka qaadanaysaa ama hay'adda ama warbaahinta inaad calaamad su'aal saartid qofku waxa uu soo qoray inuu iska hubiyaa fiican uu hubsado laakiin waxa loo sheegay ee ama ka ururahan mar walba inuu qaato ama uu ku ficil galo ilama qumana waxa way taa waxaan u soo qaatay tusaalaha waxay tahay baahida media dhadhaxaada oo runta ka hadasha inay muhiim tahay waa aad bay muhiim u tahay media dhadhaxaada oo mar walba qadiyada dadka iyo dhibaatadooda iyo armeelaha lagaga wada hadlay arrimahooda lagaga wada tashanayo goobjoog u ahaata su'aal adagna weydiisa mar walbana muhiim bay aniga xaggayga ila muuqataa intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa wada hadalkii iyo ama riwaayadii Nairobi halkaas ay maraysaa waxaa kaloo jeclaan lahaa inaan idin xasuusiyo qaar badan oo idin kamid ah is aragii Dubai haddaan aanu soo qori lahayn inaydaan maqlin baa laga yaabi lahaa ama la qarin lahaa oo dad yar oo kooban ay maqli lahaayeen laakiin markaan public ka soo dhigay waxay sababtay qaar badan oo idin kamid oo laga yaabo maanta inaad caynaysaan inaad maqashaan ama la idin sheego waxyaalahaas oo kale elsaal loo qarinayo waxaa habboon waad i beeniseen maalinkii aan soo qoray waad i caydeen waad ii gafteen laakiin gadaal kadib waad ogaateen ciidanana igamana aydan raali gelinin idinkamana filaynin marka waxyaalaha saas oo kale la idinka qarinayo ee xaqiiqada ah inaan idin soo bandhigo asa shacab oo dadkii aad idinku ogaataan meesha masiirkiina lagaga hadlay iyo waxa la qabto waxaan u arkaa ammaan iyo bogaadin inay mudan tahay qofka saas sameeya lagu garab istaago uusan mudnayn inaad xagxagatid qofka waad kala aragti duwanaan kartaan ta kale marnababa aragtidiina inaan kugu naco ha ka yaabin bal inaad idhaliishid waan jecelahay oo matqana aniga wax ii sheegtid laakiin marka aad aniga iga hadashid mowduuca ama fikirka aan dhibtay aad ka hadlin waxa weeye you are targeting the man before the ball aniga ayaad i weeraraysaa laakiin warka aan sheegayo ma beeninaysid ee waxaad rabtaa credibility aniga inaad iga dishid si aan warka loo qaadan haddii warkaas uu been yahay oo soo qoro mar horena waan sheegay raaligelin buuxda ayaan ka bixinayaa saan horeyba u sameeyey waana ka tirtirayaa war kasta oo soo qoro wixii fikirkaygana waa fikirkayga kaaga xor baad u tahay kayga xor baan u ahay ima caburin kartid ima buligarayn kartid waa fikirkayga waana caddaynayaa fikirkayga inuu yahay mar walbana waan caddeeyaa laakiin wixii war ah waxaan ku dadaalaa 100% inuu sax noqdo bini aadan baan ahay kullu ibn aadan khataa'un wa khayru khataa'un tawwabun waa khaldamaya laakiin marka aan khaldamo raaligelin baan ka bixinayaa waana kaaga mahad celinayaa war aan ku khaldamay ama aan ka been sheegay marka aad i tustid
ood ii soo dhigtood igu dhahda cabdirashiid saa iyo saabaad tiri yaa tiri mana aha sidan bay noqotay haddaad ii soo dhigtid caddayntii iyo warkii raaligelin baan ka bixinayaa waana soo gelinayaa waa hadal cad waxa weeye wax dan ah oo igu jirta inaan wax ka been sheego ma garan karo inaan runta ku wada noolaanaa muhiima aad baan idinka mahad celinayaa riwaayadii yarayd waan sheegay muddo yar bay soconaysaa dhowr maalmooda halkaasi ku dhammaatay bal waan eegi doonaa sheekh axmed madoobe inuu ku qanciyo oo arrintu hadda uu cabdi saxeexo iyo in kale waynu ka warsugaynaa ilaa beritoole ama beri dambe insha allahu tacaala aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa dadaalkiina waa inaad wadaan qof qurbaha kula jooga oo asaguba qaxootiya wax dhib oo idinka dhexeeya ma jiraan aan cadow lagugu tusin ha u arkin cadow kuguma ah asaguba waa dhibane aniguba dhibanaan ahay ayeedii baa la dilay hadda bishii hore mataqaanaa gurigeygii baa weli la haystaa ehelkeygii baa la xidhay adiguna dhibanaad tahay marka anoo dhibana ah iyo adoo dhibana ah haddii cadow laysu keentuso waa dhibaato inteeda laeg aan la ii kaa tusin cadow aniga iyo qof kale toona oo asaguba dhibana ah oo qurbaha jooga afkaarta kala duwanaashahana aynu aqbalno si ilbaxnimo iyo civilized iyo xadaarad ay ka muuqata aynu u doodno haddii rabbi idmo wax dhiba uma arko haddaad qabiiliga aaminsan tahay ama aad aaminsan tahay reerka inaynu wax ku noqon karno oynu geeska africa ku qabsan karno waan kaala doodayaa aniga oon adiga ku caayayni shaksi ahaan laakiin fikirkaa dhaliilaya aad aaminsan tahay aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa raalliga ahaada wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu iga raalli ahaada waan idinku dheeraaday marka intaasoo dhan uguma talagelin laakiin aad baad u mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu